السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada Ramadaanka ayaan isku diyaarinayna ayaamahan dhan marka ma sha Allah maanta waxyaalo yar oo dhiirigelin ayaan in la share gareynaa insha Allah marka asxaabada ma sha Allah hilibkana arkaysiin iyo waxyaalahan oo ka Ilaahay duu Ramadaanka nafta anako nabad qabna nagu gaarsiiyo ina caafimaad waxyaalo aan cunno hilibkan aan tusaayana waxaan ka wadaa digsigaana ku karneynaa ma sha Allah marka ribska waxaan tusaa gudaha wuxuu ku leeyahay marka waxyaalihii lagu karkari karo ku leeyahay marka hadda meesha oo bilig dhehayso aan point gareenayo iyo wixii hiliba chiliga stewarka marka iyo beefki iyo waxa kale anaka aan u baahnayn seafoodki ma sha Allah waxyaalo leerista say u kala yihiin ku kala xiran yihiin ama leena because dad haysta kan waa arkay laakiin aan kala duwanahay lila beed marka ma sha Allah wallahi taan badan oo ka caawinaya hadii Ramadaanka ma arkano ma sha Allah digsigan iska soo gaditid helps marka hilibka kala iska gelinay ilmihii makaroni adaa uu ilmo yar ku joogaan leer online u karnayso duhuradii amal waa iska gelinay aniga hadda arkaysin hilib ariga igu jira hilib ari kalena inta igu jira aan ku karsado waan tusaa insha Allah marka waxyaalaha geesaha ku leeyahay waxyaalana gudaha screen-ka ku leeyahay marka pressure cooker rice-ki oo kale steam-ka waxyaalaha arabtina steam garay sidoo kale huurinaysid waxaas oo dhan ma sha Allah time-ka ku save gareynaya slow cook iyo waxaas oo dhan oo yeelo yogurtka bake waxyaalo badan lagu soo bixi marka ma sha Allah ani aad iga caawiyo hilibka maanta oo dabka ii saarnaanayay hadii aad rabtid laakiin hilibka sometimes inuu kaaga dhigin ma arkano very soft jilaac aan la cuni karin like 10 minutes or 15 minutes adiga markaas ay kuugu aadanta markii la maraayo oo ka harta saacadiisa ay ka dhimantahay ayaa iska joojinay insha Allah marka saasaan ay tusaayay ina digsigan ka faa'iido marka ma sha Allah kana waan ay tusaayay kana waxa waay marka asaga waxyaalaha air fry-ga oo suubiya ma sha Allah oo lagu suubsan karaa air fry cook marka ani wili kuma baraaweenin waxyaalaha aan karsanayn like waxaan ku suubsadaa waxyaalaha oo already cooked laakiin oo ma arkano ovenka amal la geliyo hoosta la geliyo ayaa ku suubsadaa like fries ko kaleeto maxay ahayd chickenka oo diyaarka oo kaleeto waxyaalahaas oo dhan aan geliyaa marka hadda waxay ka caawinaysaa time-ka ay ku save gareynaysaa adhooti maadaaba hooyooyin iska mashquul iska nahay as usual marka maxay ahayd hadda ilmo yar ku joogan ama ilmo dhexdhexaad oo soomayn ay ku joogan oo kaleeto is easy inay waxooda inta iska gashtaan like markaas it takes 10 minutes to 15 minutes sigaan oo kaleeto iyo maxay ahayd iyo chickenka caadiga ah oo tusaa iyadana waxaas oo dhan gashanay marka kan ama chipsiga yar yarka kuskuusan oo terataadka iyo chickenkan oo kaleeto marka chickenkan iyo fries-kooda iyo ukuntooda waxaas oo kale easy inaad jika gasho uma baahna kana gashanaysa ukuntooda yar u karnaysa u saaraysa marka good lunch oo noqonaysa ma sha Allah kan kaleeto aan tusaay marka kaas saan ku fiican yahay 10 daqiiqo 20 daqiiqo amal ayaa u soo binaysa ka bacdi waa ready insha Allah inta meelaha iska hagaajinaysid qadadii ama iskoolka kale marka ilmaha ay ka imaadaan inta iskoolada ay furan yihiin oo kaleeto waa easy lunch ma sha Allah ilmaha marka iskoolka imaadaan yararka marka taasna waa dhiirigelin kareeto oo ku karsan karta anaka hadda fiir gudihiisa badana way isticmaalaan oilkiya marka oilka dhan ayuu ka qalajinaya oil ma lahaanayso wajis markaas caafimaadka ku badan markaas ku noqon wixii saliida laga yareeyo ma sha Allah iyo maxay ahayd kan aan tusaay asagana basasha lagu shiishiidayo maadaama hadda sambuuskeena iyo waxyaalaheena hoosheenay badan ay soo socoto basasha install aad gacanta ku jarjar lahayd ina mashiinkan yarka kale iska soo gadatid ama asagoo ka waaweyn way jirtaa hadii big family aad tihiin oo kale laakiin kana iga badan midkan yarka $10 la iska gadaa Targetka ama Walmartka arano in laga helo iyo meelaha Marshallka iyo meelaha dukaamada ama online ka daarto waa ka fiirsan kartaa marka basasha dhan oo ka caawinaya inta gacanta ku jarjar lahayd oo waqti ka qasaar lahayd kana ku riday it takes like 2 minutes ka yar ay kugu qaadanaya 1 minute ma sha Allah marka ani aad u caawiyo markaan bariis karsana basasha asaga aan isticmaalaa maadaama bariiska basal badan oo ku macaan yahay la dhahaa so I put like 2 xabo basal waa jarjara kana ku shubaya ma sha Allah sambuuska kaleeto hadii aad rabto inaad sambuus ku shubsatid maanta dhan ha ku heenin inay basasha aad u sii burburto ilaa ay biyo ka noqdo dadku waxay dhan qaarkood biyo noqonaysaayo markii basasha mashiimada lagu shiido marka kan so far ani kuma arkin wax oo biyo ka dhigayo it's very nice hadii aan normal u geeyo time-ka ma arkana wax yar marka adiga istiraada hadda okay basasha ku jarmatay ayaa ka joojinay marka wax badan ay markaas biyo ay sakaaga noqonaan ka wada marka tanna waa iyadana waxa way dhiirigelin yar oo ma sha Allah hadii u baahan tahay mashiinkan oo kale aad basasha kaaga caawina iska soo qaado so time-keena uu ku caawinaya again oo ku celiyo hadalkayga
marka insha Allah khayr badan aan ii rajeyna waxaan kaloona itusaa waxyaalo badan iyo maadaama hadda rabadaankii lasoo galay waxyaalaha oo banaanka inaan iska yareyno oo caafimaadka ahaan iyo xalaal wixii oo ogta rabadaankaadii insha Allah inuu xalaal ku yahay waxa cunaysa inay xalaal tahay in rabadaanka lagu aqbalo maanta in iska soo manaato haddana ay lagu aqbalo waxba faa'iido kuma keenayso marka insha Allah marka waa kana hadda waa ka bixina waana itusaaya birta yartaanka dhex bixinaya oo midadiisa sa u jeedin biyo ma lahan baashan yartaa wata oo ku imaanayso marka hadda biyo ma lahan dhacaan dhan ma lahan waa qallayl maadaama hadda bariisan ku karsanaya marka caafimaad ahaan iska cunna waxyaalaha hadii qof weyn ku joogo kale maxay ahayd malaaygo kale ukunto kale caanaha kale digirto kale waxyaalaha badan oo borotiin fiican laga helayo waaye oo caawi karo oo ogtahayna oo xalaal oo xaraan aan lahayn oo ka soo gadinayno dukaamo ama meelahaas bahaladan xalaasha midkan itusaay ilmaha kale hadii la tuso waxyaalaha xalaasha inta u soo barinta gareysad baliis aad tustid hooyo waxaana xalaal wixii ka iyo waxyaalo kale oo iska fudfudud ma sha Allah sida hadda itusayo kale waxyaalo isagoo caafimaadkiina uu ku jiro qudaartiina ay kugu jirto ma sha Allah ina cuntadeena ka dhigano ma sha Allah Ramadaan Kariim ilaahay anako nabad qabna hana gaarsiiyo insha Allah marka waxaan aan istuso waxa waaye symbol wax ina maxay ahayd xalaal aan cuno oo banaanka inta iska deysid adigoo gudahaada wax ku karsatid ma arkino insha Allah guriga lagu kariyo sidii wax xalaal ay kugu noqoto cuntadii because aan ii sheegay meelaha markii gaalada wax laga soo gadanayo waxyaalaha ay ku dadaraan cuntada oo laga yaabo hadhow rabadaankaadii inay dhibkaaga keentaa jiro marka maadaama taas ay tahay caafimaadna aan cuno iska ilaalna wixii xaraan insha Allah rabadaankeena ilaaha noo aqbalayo ducooyinkana la badsado tan kale oo advice in ku siina waxay ahayd ilmaha in la baro in maxay ahayd lagu cuno gacanta right-ka in cuntada lagu cuno oo laftiga aan lagu cunin waxyaalaha shuruudaha islaamka oo dhan oo la baro ilmaheena maadaama hadda ay rabadaan tahay xaashaashan kale u soo baranta gareysin iyo maxay ahayd sunnooyinka maxaa sunno oo markii cuntada la cunayo shuruudaheeda maxay tahay ina maxay ahayd gacanta midigta ku cuntid hadii wax ka maxay ka dhacaan ina maxay ahayd wixii ku horyaal cuntid hadii wax ka dhacaan wixii ku horyaalna la cuno cuntada korta taala la cuno ma sha Allah marka intaas oo dhan shuruudaha in ilmaha la baro maadaama annaka marka insha Allah khayr badan aan rajeynaya subscribe the video and share and salaam alaykum